laabtayda ayaa hugmaysa indhahayguna webiyaal biyo ah oo kulul ayay daadinayaan garbasaartii aan kaligeed lahaana sidaan ilmada ugu tirayay ayay catir u ekaatay markaan halkaa marayo ayaan eegay dhammaadka warqadda iyo qofka ii soo qoray fanka iyo suugaanta dhegaystayaal waa ayaanba ayaane maantana maan idinku jilbeebiyo dhambaalkii saxarla caamir dhambaal weeye naxdimeed oo ay ii soo dawisay da'yarta soomaalida ee reer miyiga ah gabar ka mid ah gabar weeye ay gamuunada dhibaatooyinku dhinac walba ka asiibeen asii aan aqoon cid gaar ah oo ay gamuunadaas u aanayso dhambaal weeye khaas ah oo aniga oo qura loogu talagalay asii aan goostay inaan dhagaystay adigana kuu soo gudbiyo kolkay ila noqotay inuu ku khuseeyo dhambaal weeye eed sheegad oo la doonayo inaadan dhagaysan oo keliyahay aad wax ka qabato waa cabasho u baahan hiilkayga iyo guud ahaan hiilka bulshadeenna dhambaal weeye ay saxarli soo qalin daraalaysay ha yeeshee ay hablo badan oo la da'ahi la qabaan la murugoonayaan oo la cabanayaan inaan dhibaatada la qaybsanno oo la naxno oo qura miyay tolow saxarli doonaysaa maya waxay doonaysaa wadajir inaan wax kaga qabanno hagardaamada aan iyada oo keliya la soo gudboonaatay boqolaal habla ah oo ay isku gada yihiin xorriyaddii shakhsiga ahayd inta laga qaaday ayaa saxarle loogu adeegtay sidii qalab aan hadlin aan fakarin oo hadba docdii la doono gudaha aqalka laga soo jeediyo waxba yaanan gogoldhigga idinku dheerayne warqadeedii iyo wixii ku qornaa maan idiin soo gudbiyo iyada iyo kuwa la midka ah ee qalab ahaanta loogu adeegtay aad u hiiliseene erayadeedii naxdinta lahaa maan maqalkiinna ku soo rido waxay saxarli tidhi walaal ku salaami maayo salaan iyo hadal macaan niyad uma hayo laabtayda ayaa hugmaysa indhahayguna webiyaal biyo ah oo kulul ayay daadinayaan garbasaartii aan kaligeed lahaana sidaan ilmada ugu tirayay ayay catir u ekaatay markaan halkaa marayo ayaan eegay dhammaadka warqadda iyo qofka ii soo qoray waa saxarla caamir warqaddii ayaan dib ugu noqday xorriyaddu sidaa tidhaahdaan waa wax qaali ah ma aqaan falsafadda mana aqaan siyaasadda laakiin waxaan dareemayaa inay lagama maarmaan tahay qofku inuu aayihiisa ka tashado berigii aan miyiga joogay ee aan tuulooyinka aryaha aroorka a keeni jiray waxaan raadiyaha ka maqli jiray ummad waliba xaqa ka talinta aayaheeda iyada ayaa iska leh lagamana qaadi karo hadda ayaan is idhaahdaa hadday ummaddu tahay qof meel ku soo ururay oo batay sawma habboona intaan aaya ka tashiga ummadaha lagu adkaysan in midda qof ahaaneed xaqiijinteeda loo howlgalo iga raalli ahaw haddii aan dhex galay arrimo aanan aqoon u lahayn maxaa yeelay waxaa laga yaabaa intaan dareenkayga kuu soo gudbinayo inaan dhex dabaasho arrimo aanan weligeed u dhabagelin waxba yaanan buura jeexine aan qalin aan qaastiistu dhiig tahay kuugu soo gudbiyo guuldarrada ila soo gudboonaatay inaad iga naxdo kuugu sheegi maayee waxaa iiga daran inaad niyad ahaan ila safato laga yaabee wax weyn oo guuldarro lagu magacaabi karo inaysan kula noqon
maxaa yeelay dalkeenna maalin kasta ayay tan i haysataa ka dhacdaa. Soomaalidu waxay tidhaahdaa war la og yahay xiise ma leh, laakiin waxaan ogaaday inay tahay mahmaah runta ka fog oo aan kolley xaaladayda lagu dabaqi karin. miyaan badiyey? haa, raalliga ahow mar kale aan hoos u daadego. sanadkii 1962 ayaan ku dhashay miyi ka tirsan bartamaha Soomaaliya. qoys sabool ah oo ari mooye aan iskin lahayn, beledna aan wax u jirin ayaan ka dhashay. kugu daalin maayo inaan kuu sheego arrimo aad ogsoon tahay oo ah waxa uu qofka da'dayda ahi miyiga ka qabto. curadka qoyska ayaan ku xigay, sidaa darteedna waxaan durba noqday gabar ay hooyadeed ku nasatay oo howlihii badnaa qaar ka hanatay. mase jiraan waxyaabo sheegid mudan oo aan kaga duwanaa carruurihii badnaa ee aanu casinta ku kulmi jiray amaba aanu ceesha ariga wada keeni jiray. xagaagii 1978 annaga oo degan agagaarka tuulada Jecdheer ayaa waxaa meel noo dhow awrgeeda ah ku soo furtay nin qiyaasta 55 jir ah. inkastoo uu daaqii nagu xiriiriyey fagaagii aryahana naga soo xadeeyey, haddana aabbahay iyo beeshii aanu isku degmada ahayn wax hiif iyo habaar ah uma ay geysan. kadib ayaan ogaaday ninkaas iyo aabbahay inay horay isu yaqiineen oo ay ceelka isku barteen. isla baryahaasba waxaan arya daaqeenka isku barannay gabar uu ninkaasi dhalay oo aniga aan wax badan iga weynayn. waxay ahayd gabar sheeko fiican oo aan haddiiba jeclaaday. had iyo jeerna aryaha isku meel ayaanu u soofin jiray ilaa uu aabbahay igu canaantay inta aan gabadhaa la sheekaysanayo riyo badani inay abaajiyeen. Canab iyo anigu waxaan jeclayn inay labada reer si joogto ah u wada degaan. maalmaha iyaga ah ma aanu ogeyn guuldarrada ay waayuhu noo kaydinayeen, mana aanu ogeyn inay midiba tan kale reerkooda necbaanta ugu daran necbaan doonto. laakiin aan kuu sii sheegay nacaybka isaga ah labadayada midna ma abuurin. yaa abuuray waad ogaan doontaa. markii uu daaqii sii daba yaraaday ayaa raggii ku tashaday in la rug doorsado oo meel ruumanka la degan yahay ka wanaagsan xoolaha loo raro. aabbahay iyo guutaale waa ninkii nala soo degay ayaa loo doortay inay beesha u sahan tagaan. Canab iyo anigu aad baanu ugu faraxnay, maxaa yeelay labada aabbe oo israacay waxaan u qaadanay inaannu wada guuri doonno oo ay sheekadayadii macaanayd noo sii socon doonto. taas iyada ahi way hirgeli lahayd haddii ay wax waliba sida caadiga ah u dhici lahaayeen, laakiin wax waliba si lama filaan ah ayay u dhaceen. siday ila tahay mararka qaarkood tallaabo qurax ayay samaanta iyo xumaantu qofka u jiraan, laakiin garan maayo waxa inta badan tallaabada iyada ah xagga xumaanta loogu qaado. maalinta iyada ah ee aabbaha iyo guutaale beesha u sahan tageen, haddii ay hal tallaabo xagga samaanta u qaadi lahaayeen, walaaca aan maanta ku jiro kuma jireen, adigana warqad kuguma wareeriyeen. miyaan badiyey? haa, raalliga noqo oo ii dulqaado. aabbaha iyo guutaale intii ay sii socdeen waxay ka sheekaysanayeen daaqa, biyaha barkaduhu siday u qaaliyoobeen iyo dhulkii kaymaha ahaan jiray nabaad guurka ku dhacay. qorraxdii markay kululaatay oo ay isku afgarteen halka beesha loo soo rari doono ayay geed quraca hoostiis fadhiisteen. cagku geedkaas mar qurax ayay garwaaqsadeen inay sheekadii ka dhammaatay. midkood waliba wuxuu raadiyey mawduuc xiisa leh oo laga hadlo. markaas oo kale waxaa iska caadi ah in cabbaar la nasto oo inta dhacdiid la isu tuuro addimada loo raaxeeyo, laakiin lama yeelin. aamus yar kadib ayaa waxaa mawduucii laga hadli lahaa helay guutaale oo yidhi
caamir labadeennaba dumarkii naga gaboobe oo intaa oo carruur ah ayay midiba leedahay dal dambana kuma harin oo ka sugi mayno kollayba rag waa hawo oo inaan guursannaa waa lama huraane maxaynu yarad u bixinaynaa aabbahay oo aan dulucda garan ayaa yidhi oo walaalow maxaynu yeellaa wuxuu yidhi gabarh inan ah ayaa ii joogta adigana tu la mid ah ayaa kuu joogta maynu isdhaafsanno halkaana gabdha reerood yaradkooda iyo canaadka waalidkood kaga fursanno aabbahay oo aan lahayn iskin yarad loo bixiyo hadduu haysan lahaana inuu bixiyaa ku adkaan lahayd aad buu bareeraha ugu farxay isla goobtiina hawraarsan buu ku yidhi caku goobtaas iyadoo labada yadii sidii laba maro isu dhaafsaday ayay dhinacii reerka u soo carraabeen wax badan iyagoon geedkii ka soo fogaanna waxay ku heshiiyeen arrintaas inay si degdeg ah laba bari gudahood uga salgaaraan meel dhexe haddii la soo marayo ayuu guutaale xusuustay tayro dugsiley ah oo wadaad sida wax loo meeriyo yaqaani uu joogo in yarna u jiray halkii ay marayeen wuxuu yidhi caamir intaynu xilligan jiilaalka ah wakhti ku lumin lahayn wadaad raadin maynu dugsilayda aan haddaba naga fogayn ku leexanno oo weydiisanno inay labada gabdhood noo kala meheriyaan aabbahay durbadiiba hawraarsan iyo guddoon ayuu yidhi waa yaab mar walba guutaale ayaa talada keena mar walbana aabbahay waa ka yeelaa maxay ku dhacday garan maayo wadaadkii kolkii loo tegay caku wadaadkee wax waliba siday labada oday ugu talagaleen ayay u dhaceen waxay saxarle tiri heshiiskiisii loonaa ee aabbahay iyo guutaale dhex maray macnihiisu muxuu tolow ahaa waxaa la igu xukumay inaan afadii guutaale noqdo canabna ay afadii aabbahay noqoto saaxiib baannu ahayne waxaana lagu xukumay midiba inay tan kale aaye u noqoto kala fogaa saaxiibnimo iyo aayanimo dib looma dhigan wakhtina la iskama lubin ninba gabadhiisii ayuu fiidnimadii xoolihii oo aan soo xiroon u sheegay bal malee wixii dhacay annagoon is ogayn kuna tashan ayaannu bareerahaasi loon ku gacan sayray ha yeeshee diidmada hablaha yaryari sida la og yahay miyiga caku miyigee qiimo kuma leh sida uu ridiisa u bixin karo ayuu odayguna gabadhiisa u bixin karaa wax lala yaabana ma aha midda kale gabar kasta oo reer miyi ahi maya ayay tidhaahdaa marka hore oo in nin la siiyey loo sheego kadibna tajuub dartii way iska yeeshaa sidaas awgeedna diidmada habeenkaasi labada oday wax dhiilla ah ma gelin hooyaday iyo canab hooyadeedba markay warkii maqleen ayaa argagax ku dhacay oo masayr ay la madax wareereen mid waliba ninkeedii ayay wejiga u kaduuday oo haruubkii caanood u dhiibi weyday bari haddii la joogay ayay aabbahay iyo guutaale guddoonsadeen in labadii dumar ahayd la dhisto oo la aqal geysto guutaale ayaa ra'yi soo jeediyey oo yidhi caamir si aan dadku ugu malayn inaannu gabdhaha isdhaafsannay oo aan naloo caayin aan midba mar dhisanno kalana dambaysiinno oo aniga marka hore gabadhaada ii dhis aabbahay durbadiiba hawraarsan iyo guddoon ayuu yidhi waa yaab mar walba guutaale ayaa talada keena mar walbana waa ka yeelaa aabbahay aqalkii la igeyn lahaa ayaa